السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كوسو دوادا وردون أكاديمي iyo koorsada luqadda Boortaqiiska cashirkan waxaan ku sharaxaynaa insha Allah como arrendar uma casa sida guri loo kiraysto ama quarto qol wuxuu rabaado sida loo kiraysto guri como arrendar uma casa arrendar iyo alugar ayaa kala jiraan alugar ereygaas aad loo isticmaalaa laakiin qaabka saxda ayaa waxay tahay guryaha iyo marka la kireysanayo waxyaabaha immobilka ah oo aan dhaqaaqin ama guurtada ah marka la kireysanayo arrenda ayaa la adeegsadaa dad badan aluga ayay adeegsadaan laakiin luqad ahaan waa qalad ayaa la yiraahdaa khaasatan Boortaqiiska Portugal ama European Boortaqiiska waa qalad guryaha markaad kireysanayso waa arrenda gaari iyo waxyaabo soconaya markaad kireysanayso ama shay dhaqaaqaya waa aluga alugar um carro gaari inaan kireysanaya eu quero alugar um carro gaari inaan kireystaan rabaa laakiin guri markaad kireysanaysa quero alugar uma casa waa qalad waa inaad tiraa quero arrendar uma casa ayaa saxa waa lagu kala duwanaan karaa Boortaqiiska Brasileerka oo kale aad waxay u isticmaalaan alugar guri marka la kireysanayo xataa alugel ama alugar marka tan waa era bixin jumladana way ku xogaan insha Allah proprietario waa milkiilaha proprietario waa milkiilaha guriga ama qofka iska leh proprietaria hadii la yiraahdo laga dhigana waa forma feminina waay marka milkiilaha senhorio ayaa lamid ah senhorio iyo senhoria qofka iska leh guriga marka heshiis la gelayo kala waa erayadan waa muhiim contractiga guryaha lagu kireysto iyo waad ku arkaysaa in badan oo kamid ah erayadan marka proprietario iyo senhorio waa milkiilaha guriga qofka iskala waayo inquilino waa kireyste inquilino waa kireyste qofka guriga kireystay inquilino waa kireystaha terraço ama terraço meesha u sareysa guriga la yiraahdo sagxadda guryaha dabaqa inta badan meesha dabaqa uu ku dhamaado u dambaysa terraço ayaa la yiraahdaa ama terraço faranda waa barando ama balcon meeshan dhan waayo faranda waa sidaas jardin af Soomaali waa sidoo kale jardin waa jardin quintal waa daarad waayo ama barxadda guriga quintal piscina waa barkad ama baraag meelaha lagu qubaysto oo guriga piscina buulka macnaha guriga meesha lagu qubaysto piscina baraagaha loogu talagalay qubayska waa sida piscina ayaa la yidhaha waasko ama baraag ama barkad elevador waa wiish guryaha weyn oo dabaqyada wiish ay leeyihiin iyo goobaha dhisma ganacsiga iyo waxyaaba la midka elevador marka waa wiish waa elevador dispensa qolka kaydka qolka alaabada lagu kaydsado cuntooyinka iyo waxyaaba la midka maxaa la yiraahdaa dispensa guriga oo kale dispensa ayuu leeyahay meel yar oo go-aan oo loogu talagalay in lagu kaydsado waxyaabaha sida cuntada iyo guriga muhiimka ah dispensa estacionamento waa baakin meelaha baabuurta la dhigto lagu baakinto estacionamento waa baakin mobiliado guri alaabadiisa wato waay alaabada guriga wata mobiliado casa com mobilia hadii la yiraahdo marka ama sem mobiliado waa marka alaabadiisa oo wato gurigu asagoo alaabadii u dhameystiranta aad soo degto sem mobiliana waa markaan waxba ool guriga qaar lagu kireeyaa jira qalabkiisa wixii inta loo dhameystiro kuraas fadhi wax kasta yaalin lagu kireynayo marka mobiliado waa markaas oo kale jiif sariir wax kasta yaala sem mobilia hadii la yiraahdo waa maxay wax alaab ma tal waa adiga laabtada soo gado sem mobilia
Sala. Sala waa fadhi. Sala fadhi. Quarto qol. Quarto qol. WC. WC iyo banheiro waa musqusha waay. Casa de banho, WC, banheiro, waxa dhan waa isku macno, waa musqul. WC na waa loo yaqaan. Casa de banho waa loo yaqaan, banheiro waa loo yaqaan. Apartamento waa apartment, flight ama apartment waa qeyb guri. Apartment guriga. Contrato de kirada waxaa la yidhahdaa heshiis ka dhe. Contrato de arrendamento. Contrato de arrendamento waa heshiiska guriga lagu kiraysto. Marka guri soo gasho kale waa in contrato de arrendamento la sameeyaa. Contractiga heshiiska guriga inaad adig kiraysatay cadaynaysa. Contrato de arrendamento guriga haddaad iska shubto lacag aadan wax contractiga lagu siin berri lagala baxa laga yaabaa laga bax guriga la yidhaha. Waxaad u baahan tahay marka wax proof ama cadayna inaad gurigaan adigu kiraysatay inta bilo aad kiraysatay iyo lacagta aad bixisaba ay ku caddahay. Marka contrato de arrendamento waa muhiim. weli markaad ajnabi tahay wadan kala jooga waa muhiim heshiisyadan oo kale la iska adkeeyo. Haddii kale waxaa dhacaysa in lacagta laga qaato marka hore lagu yiraahdo dib male iskaga jir guriga. Marka muhiim maahan wax la qore iyo aamin in lagu yiraahdo wadankii nidaam ka jira. Waxaa laga yaabaa qofkii kula heshiiyey maana qof kale inuu berri yimaado ku yiraahdo iga bax guriga. Heshiis la soo baxda la rabaa markii booliska la isla aado maxkamad iyo geeska uu gaaro. Haddii aadan wax contracti ama cadaynaya guriga inaad kireysatay lacag ka bixisay muddadii aad kireysatan aysan weli dhammaan, haddii aadan haysan waa adiga laga gar helaya. Marka waxa lagu qasbayaa inaad guriga isaga baxdo oo lacagtaadi ka sabarto. Marka contrato de arrendamento waa qasab aad la isaga adkeeyo. Aviso de despejo. Aviso de despedimento ama aviso de despejo waa digniinta guriga ka bixinta. Aviso de despejo waa maxay? waa guriga marka iga bax lagu yiraaho kale ama digniin lagu keeno waqtiga uu dhamaaday guriga iga bax. Pagamento inicial. Pagamento inicial waa bixin hordhaca bilowga hore ah bixinta ama lacagta kooda hore la sii dhiibo. Pagamento inicial waa bixin horumaris ah ama lacag la sii hormariyo kale guriga markii aad soo degi rabto kale ama aad kireysan rabto lacag aad sii dhiibto. Pagamento inicial waa marka. Moradia waa deegaan meesha la degan yahay ama guriga. Moradia ayaa la yiraahdaa waa deegaan. Moradia waa deegaan. Estou a procurar waxaan raadinayaa marka waa weli como arrendar uma casa ayaan ku jirnaa. Como arrendar uma casa marka kuwaana waa jumlado kuwaas haday arbixinayaan kuwa waa jumlado. Estou a procurar waxaan raadinayaa uma casa para arrendar. Uma casa para arrendar guri aan kireysto ayaan raadinayaa. Guriga uscida usoo garacday oo kale ama meel ay digniin ku qoran tahay wax la mid ah ama guri aan ugu jirnad aragto marka waad u garacdo waxaad tiri estou a procurar uma casa para arrendar. Será que estão a arrendar casa? Guri ma kireysanaysiin. Marka a casa é para venda. Guri waa iib. Não é para arrenda. Kira ma ahan. Guriga kira ma ahan ee waa iib. A casa guriga é para venda waa iib. E não é mana ahan para arrenda. Ma ahan kiro. Estamos a arrendar. Waxaan kireysanaynaa ma kireynaynaa uma casa qol de 2 quartos kaasoo 2 qol ka kooban. Uma casa de 2 quartos qol 2 qol ka kooban. Uma sala fadhi. Cozinha jiko. Cozinha waa maxay jiko e WC iyo musqul. Estamos a arrendar waxaan kireysanaynaa ama kireynaynaa uma casa de guri. Uma casa guri de kaasoo leh 2 quartos 2 qol. Uma sala fadhi cozinha jiko e WC iyo musqul. Estamos a arrendar waxaan kireysanaynaa sidoo kale ama kireynaynaa quarto e sala. Quarto e sala qol iyo barsad ama qol iyo fadhi. Quarto e sala qol iyo barsadiisa ama qol iyo fadhigiisa ayaan kireynaynaa. Estou à procura waxaan raadinayaa de uma casa que tem quintal fechado. Estou à procura de waxaan raadinayaa uma casa que tem guri leh quintal fechado daarad go-an leh. Guri xiran oo daaradiisu ay soo xiran tahay.
ayaan raadinayaa. Guryo irid banaana iyo guryo waxaa jiraan daarad go-an leh. Estou à procura de uma casa que tem quintal fechado. Guri daarad xiran leh ayaan raadinayaa. Será que tem água canalizada e energia da rede? Será que tem água canalizada? Ma leeyahay guriga? Será que tem? Ma leeyahay água canalizada? Biyo, tubo biyo ma leeyahay ama biyo ma ka socdaan? Energia da rede, korontona ma leeyahay? Biyo iyo koronto gurigu ma leeyahay? Água canalizada. Biyo, água canalizada waxaa loo yaqaanaa biyaha dowladda ay bixiso kale oo tubooyinka waaweyn ay keenaan. Água canalizada kuwaasa la yidhaha. Energia da redena waa korontada, electricidade waa ama energia da rede. Infelizmente, nasiib daro, infelizmente, nasiib daro, não tem, ma lahan, não tem, ma lahan, infelizmente não tem, nasiib daro ma lahan. Onde fica a casa? Guri waxuu ku yaalaa. Onde fica? Onde está a casa ayaa lamid ah. Onde fica a casa? Guriga intuu ku yaalaa, maxay ku yaalaa? Preciso arrendar armazém grande. Preciso, waxaan u baahanay arrendar inaan kiraysto armazém, baqaar grande, kaas weyn, baqaar weyn, armazém grande, baqaar weyn. Qual é a dimensão? Qual é a dimensão? Waa maxay cabirka aad u baahan tahay? Qual é a dimensão? Baaxadda ama cabirka aad u baahan tahay waa kee? Pelo menos ugu yaraan 20 por 15, 20 por 15, 25 lagu dhiftay, macnaha 20 dherarkiisa iyo 15 balaca, 20 por 15, marka waa sidaas. Só temos estabelecimento de pequena dimensão. Só temos kaliya waxaan haynaa estabelecimentos, waxaan haynaa kaliya dhismooyin, estabelecimentos ama goobo, waxaan haynaa goobo ama dukaamo de pequena dimensão oo baaxadoodu yar tahay, cabirkoodu yar yahay. Dukaamo yaryar kaliya ayaan haynaa. Você pode descrever a sua casa? Você pode descrever a sua casa? Gurigaaga ma ii tilmaami kartaa qaabkiisa? Você pode descrever a sua casa? Gurigaaga ma ii tilmaami kartaa qaabkiisa? A minha casa, gurigayga, tem, wuxuu leeyahay 2 andares, 2 dabaq, tem 2 andares, 2 dabaq ayuu ka kooban yahay. No primeiro andar, dabaqa koowaad, tem uma cozinha, wuxuu leeyahay tem uma cozinha, wuxuu leeyahay jiko, uma sala de estar, fadhi, uma sala de jantar, qolka qadada, e banheiro, musqul, e banheiro iyo musqul. Andar waa dabaq, andares waa dabaqyo markaa. Minha casa tem 2 andares, 2 dabaq ayuu ka kooban yahay gurigayga. Prédio waa la dabaq, prédio, prédio waa dabaq oo dhan, laakiin halka qayb andar waa marka. No primeiro andar tem uma cozinha, uma sala de estar, uma sala de jantar, banheiro. Insha Allah waa sii soconaya cashirkan, qaybta labaad ayuu halkan kasii soconaysa insha Allah. Hal maran soo kormaraya. Proprietário, como arrendar uma casa. Proprietário, proprietária, senhorio, senhoria, inclino, terraço, varanda, jardim, quintal, piscina, elevador, despensa, estacionamento, mobiliado, sem mobília, sala, quarto, WC, banheiro, casa de banho, apartamento, contrato de arrendamento, aviso de despejo, pagamento inicial, moradia. Estou a procurar uma casa para arrendar. Estou a procurar uma casa para arrendar. A casa é para venda e não é para renda. Estamos a arrendar uma casa de 2 quartos, uma sala, cozinha e WC. Estamos a arrendar 1 quarto e sala. Estou à procura de uma casa que tem quintal fechado. Será que tem água canalizada e energia da rede? Infelizmente não tem. Onde fica a casa? Preciso arrendar armazém grande.
Preciso arrendar um armazém grande. Qual é a dimensão? Pelo menos 20 por 15. Só temos estabelecimentos de pequena dimensão. Você pode descrever a sua casa. A minha casa tem dois andares. No primeiro andar tem uma cozinha, uma sala de estar, uma sala de jantar e um banheiro. ومهم 10 كان هذا ضمن سنتين لسعود كينا wuxuu ka mid yahay wada sheekeysayaasha ama casharo badan oo aan soo bixinaynay como arrendar casa way kan como alugar como reservar quarto no hotel oran usoo sharaxnay sida qol looga kiraysto hotel como falar com táxi sida taxiga loola hadlo sida como falar com polícia sida booliska loola hadlo como fazer uma queixa sida dacwo saldhiga booliska looga gudbiyo ama booliska econômica loola hadlo waxaan soo sharaxnay como falar com médico sida dhakhtarka loola hadlo como comprar comida no restaurante sida cunto maqaayad looga gato sida suuqa como comprar algo na praça sida suuqa looga iibsado qudaarta oo kale iyo waxyaaba la midka suuqa looga iibsado como comprar roupa no boutique sida dukaanka dharka looga iibsado dhammaantii qaybo badan ayaan ka soo hadalnay haddii aad dhammaan casharadaas soo aragtay aad si fiican usoo fahamtay ereyada ku jira iyo qaab dhismeedka jumladaha aad si fiican usoo fahamtay waxaan qiyaasayaa inay ku fududahay sababtoo guri waad kiraysan kartaa gaari waad kiraysan kartaa hotel haddaad u baato waad kiraysan kartaa diyaarad haddii aeroboortka waa taqaanaa ereyada lagu maro qaybta canshuurta customka aeroboortka iyo dadka caadiga qaybta immigrationka adyaaleed haddii suuqa aado qudaar iyo waad kasoo gadan kartaa dukaan dhar waad kasoo iibsan kartaa dhakhtar waad aadi kartaa dhammaan casharadu qaabka ay ku socdaan qaab waxa waaye isdhamaystiraya ama iskeenaya waan ugu talagalay qofku insha allah markay dhammaato koorsadani inuu level fiican luuqada ka gaaro kamana maqlan dhinaca kalena isku xirkii iyo grammatica portuguesa waanagay conditional ka soo hadalnay jumladihii shuruudaha hore waanagay usoo hadalnay ugu yaraan 3 tensi waanagay soo aragnay oo presente passado iyo futuro ah sidoo kale verbo ter verbo ser verbo estar waan soo aragnay conjugação waxaan soo aragnay ficilo badan sida verbo saber verbo poder iyo waxyaaba la midka markay presente passado iyo futuro ay yihiin iyo sida isu bedelaan verbo regular iyo irregular ayaan soo sharaxnay casharadii basic ahay waxyaaba badan ka soo sharaxnay sidoo kale koorsadan nivel intermediario wax yar ayaa ka dhiman marka waa muhiim qofku inuu markasta dib inuu u laabto qofka ku wareersan casharadan u dambeeyay hore ay ka soo qaldantay adiga qaladka iska leh aniga qaladka ma leeyahay hore ay ka soo qaldantay waxa laga yaabaa inaad alfabeti ka soo booday inaad verbo ser iyo estar iyo verbo ter aad ka soo booday marka way kugu adkaanaysaa jumlado waaweyn sida kuwan oo kale inaad la qabsato haddii aad bilowgii ka soo booday laakiin bilowga qofta kala soo qabso tartiiba u soo socotay ilaa aad casharkan oo 70 iyo 8 aad imaaday level fiican aad maraysaa waad isdifaaci kartaa haddaad askar la hadlayso waa taqaana ereyada loo adeegsado suuqa haddaad wax ka iibsanayso meel kastoo aad aadaba ereyo kugu filan waad haysataa aad iyo aad u mahadsantihiin insha allah dadaalka la badiyo assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu